warbaahinta Kenya qaar kamid ah ayaa qortay in 5 kamid ah booliska Kenya ay ku dhinteen weerar ay kooxo hubaysan oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-shabab ay ku qaadeen saldhig boolis oo ku yaala deegaanka Ijraa oo u dhow magaalada Garissa gobolka waqooyi bari dalka Kenya waxaana sidoo kale kooxda weerarka soo qaaday burburisay isgaarsiinta Safaricom ee deegaankaas weerarku ka dhacay dableyda weerarka fulisay ayaa waxa tiradooda lagu sheegay 50 waxaana halkaas kala baxsadeen hal baabuur weerarka ayaa dhacay 2:15 daqiiqo xalay sida uu xaqiijiyay mid kamid ah boolisku aan magaciisa la isticmaalin waxaana uu socday iska horimaadkaasi muddo 20 daqiiqo saldhigga weerarku ka dhacay ayaa waxa wararku ay sheegayaan inay xilligaas weerarku dhacay ay ku sugnaayeen ilaa 40 ciidanka booliska dalka Kenya loo yaqaan AB sidoo kale laba sarkaal oo dhalashahan Kenyaana kana mid ah ururka Al-shabab ayaa lagu dhaawacay weerar duqeyn oo ciidamada Mareykanku ay ka geysteen gudaha Soomaaliya waxaana sidoo kale wararku intaas ku darayaan inay weerarkaas ay ku dhaawacmeen 4 kale oo kamid ah xubnaha kooxda Al-shabab labada sarkaal ee Kenyaanka ee lagu dhaawacay gudaha Soomaaliya ayaa waxa hadda lagu daweynayaa saldhig ay leeyihiin kooxda Al-shabab oo ku yaala koonfurta Soomaaliya sida ay sheegtay dawladda Kenya magacyada raggan ayaa waxa lagu sheegay Cabdullaahi Waliid iyo Maxamed Axmed Faarax sida ay daabacday warbaahinta gudaha Kenya Mareykanka ayaa xoojinaya weerarada uu ka fulinayo Soomaaliya kuwaas oo ku bartilmaameedsanayo xubno sarsare oo ka tirsan kooxda Al-shabab ururka Al-shabab ayaa sanadadii ugu dambeeyay gudaha dalka Kenya ka qortay dhalinyaro Kenyaana si ay uga barbar dagaalamaan iyadoo marar badan dawladda Kenya ay ku eedeysay kooxdaasi inay dhalinyaro badan oo Kenyaana ay ka dhaadhiciyeen afkaartooda Abdirashiid Obsiye on Cable TV Nairobi